maamulka degmada Gaalkacyo oo sii xoojinaya ololaha hagaajinta bilicda magaalada ayaa ku guuleystay furidda wadooyin xirnaa iyo burburinta dhismayaal sharci darro ah kadib howlgalla oo maamulku ka sameeyay qaybo ka mid ah xaafadaha Howlwadaag iyo Garsoor ee magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. duqa degmada Gaalkacyo ahna gudoomiyaha degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale oo warbaahinta qaranka la hadlay intii ay socdeen howlgallada isugu jira dib u furista wadooyinka iyo burburinta dhismayaasha sharci darrada ah ayaa sheegay in howlgalkani uu qayb ka yahay ballanqaadyadii uu sheegay in uu sameyn doono xilligii ololaha doorashada isagoo dhinaca kalena uga mahad celiyay shacabka Gaalkacyo sida ay ugu dhagan yihiin howlwadeennada maamulka degmada Gaalkacyo ee Galmudug. ilaahay waa mahad iskale saaka waxaan hadda joognaa xaafadda Garsoor mar dhawaataan xaafadda Howlwadaag baan hawl ka soo qabanay gudoomiyaha Xasan Warsame oo wadadii jaamacadda Cabdullaahi Ciise iyo kambaska Maamul Khaliij isku xireysay runtii lacag dheer oo soo ururshay gudoonsiintii ardaydii iyo guddigii ka shaqeynaya wadada oo runtii wadadaas ay ardayda lafdhabar u ahayd dowladda hoosena ku garab istaagtay runtii sabab badan ay ku bixisay sidaas la mid ah mar kale waxaan joognaa xaafadda Garsoor gudoomiye bedel iyo ku-xigeenkiisa xogayihiisa iyo tiimka gudoomiye laameedyada iyo fallarada gudoomiyaasha runtii halkan ay yimaadaan waxay micnaheedu ahayd gudoomiye walba xaafadiisa shaqo laga sugay laakiin waxay daliil u tahay hamiga ay u hayaan in wax hagaagaan maadaama gudoomiye bedel uu saaka gudoomiye furis xaafadda Garsoor ay ka qorshaysnayd gudoomiyaasha waxay u soo istaageen sidii baris waxay u qaban lahaayeen insha Allah taala halkan ka dheehdaan gudoomiye waa mahadsantihiin gudoomiye bedel iyo tiimkiisa aad iyo aad u mahadsantihiin kambaniga gacanta hawsha ku hayaan aad iyo aad u mahadsan yahay insha Allah taala ballanteena waxa weeye waa inaan la dagaalano wax walba oo bilicda magaalada haleynaya qashin ha noqoto wadaxmo ha noqoto insha Allah bulshooyinka waxa ugu baaqaynaa maamulka dawladda hoose aad soo doorateen wuxuu ku jira shaqadii ay soo idmateen oo ahayd inuu asagu gacmihiisa ku shaqeeyo waxaan codsiga ku nahay inaad garab siisaan una garab istaagtaan dadka dhulal kale ee mulkiilayaasha ah waxaan ka codsanaynaa inay bixiyaan dhulalkooda si dhulkoodu qiimo u yeesho maantay waxa laga yaabaa wadooyinka socda dhul joogay qiimo yar inuu qiimo badan maanta joogo ilaahay ummadda wadada ha tuso micnaheeda waa kaaba dhaqaale wax weyn bay ku fadhisaa labaatan wada la'aana waxaa kaaga fiican 25 ama 20 wadada marka waxaan ka codsanaynaa inaad ku deeqdaan wadooyinka aan hormuud ka noqotaan bixinta dhulalka iyo shaqada la hayo ee aynan ku cuslaynin dadka volunteerka ay ku shaqeynaya sidoo kale waxaan rabaa inaan idhaahdo dhammaan magaalada waxaan ugu baaqaynaa nadaafadda in laga wada shaqeeyo gacantaan qaybteena kaga haynaa walaalayaal hooyooyin nagala shaqeeya nadaafadda. Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo.